xalay waxaa dhacday boonooyina la bixinaa markii la yiri aniga 6 saac iyo baran ku soo kacay markaan boonooyinka ku soo baxay ninkii wadayna wuxuu ugu yiri qabiil matiida iga lex boonadaasoo loo dhiibay ganacsato iyo baqaaraaley na la baxshay 9 saac habeennimo waa qayb ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne oo ka sameeyay kuwa oo deegaansaday deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka bari ee Beledweyne dadkan waxay xilligan cabasho ay ka yihiin hanaanka maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ay 48 saac la soo dhaafay xilli waliba habeen ah ay ku qaybiyeen kaarar dadka ay ku qaadan lahaayeen raashin waxay codsadeen in maamulka qaab cadaalad ah oo wax ku qaybiyo boonooyinkana uu bixiyo xilli maalin ah waxayna dhinaca kale ay ogeysiiyeen inay u baahan yihiin teendooyinka maamulka xilligan gacanta uu ku hayo in dadka loo qaybiyo si ay hoygooda u saartaan maadaama da'mashada roobka wali ay tahay mid sideedii u sii socota dhibaatada aan haysato ilaaha naga saari karo meeshaan mucaawina la keenay teendooyina la keenay 5 maalmood ka hor xalay meeshaan cidaan rooba ku leh salaaligeed wixii la keenayna maamulka ku dhagan xalay waxaa dhacday boonooyina la bixinaa markii la yiri aniga 6 saac iyo baran ku soo kacay markaan boonooyinka ku soo baxay ninkii wadayna wuxuu ugu yiri qabiil matiida iga lex qabiilkaada doono meesha maxaa qabiil keenay dad isu keentay reer Beledweynaanahay Beledweynaan ku dhalanay meel uma dhaqaaqin haddana biyo soo bixi buurtaan saaranahay waxaan halkan ka cadaynaynaa wixii la baxshay xalay iyo habeen horo 3 habeen oo salaam habeen meelaha wax la baxshay 2 habeen la wax la baxshay inaan ummad masaakiin oo soo qaadaan waxba la siiyo oo dad gooni ku tagrifashan waxa dhacday xalay nin mas'uul ah ana hadda hebel mali nin mas'uul oo madaxa oo wado ayaa niman ku soo baxeen marka dadka masaakiinta ma siisid waa madax maamulku ka mid yahay marka wuxuu yiri qabiilkayga aan wada yaa rasuulullah wariyaha laga baqayaa ninka marka ma ummadda mas'uul u yahay dhamaanteed bas qabiil mas'uul u yahay qabiil mas'uul yahay waxaan meeshan ka cadaynaynaa inaan dadkan wax u gargaaray iyo wax u yimiday iyo wax wara ama wax hadala ama teenda iyo wax loo keenay inaan jirin aan halkan ka cadaynaynaa waxaan loo sheegay oo maqalnay oo ishayna ku aragnay in 2 habeen oo isku xigta midna xalay tahay midna habeen hor tahay in la baxshay maxaboonayaal la baxshay boonadaasoo loo dhiibay ganacsato iyo baqaaraaley aniga codsiga aan dirahay wuxuu ka kooban yahay waxaan u dirahayaa dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayro dhammaan xildhibaanada aan u dirahay codsigaas waxaan codsanaynaa jawaankan eberka Hirshabeelle wataan in la ka qabto maalin kastaba ninkii gobolkan la keen ama madaxweyne ka noqdo sar u dhisaya basar balweyne sariya ka wada dhirka hebel sartaarule kasa ku hayna war xoogeen ugu haysaana la ka qabto dawladda Soomaaliya militariga noo amarto dadka waxa la gaarsiiyo dadka waa baabee si aynu wax uga ogaano cabashada bulshadan dhibaataysan ee barakaca ah xilligan ay muujinayaan waxaan la xiriirnay xubno ka mid ah maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyne waxaana noo suuro gashay inaan helno maayar ku-xigeenka Beledweyne Cabdi Ismaan Canjeex waxa uu sheegay in ka maamul dowlad hoose ahaan aysan waxa dhacaya waxba kala soconin isla markaana ay aad uga xun yihiin in xilli habeen ah la bixiyo kaarar dad barakacayaal ah raashin loogu talagalay inay ku qaataan waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintan ay soo faragelin doonaan isla markaana xilli maalin ah deeqyaha iyo kaararka la qaybin doono sida dadka ay u kala mudan yihiin wax loo siin doono anigoo ku hadlaya magaca maayar ku-xigeenka duqa magaalada Beledweyne waxaan aad uga xumahay waxay shacabka ay ka cabanayaan ayaan macnaha maarta aad uga xumahay sababta waxay tahay boonooyinka oo la bixiyay xali 8 saac sida aan isku ogeyn anigoo maayar ku-xigeenka duqa magaalada ah in dadka shacabka ah la dhax galo oo dadka rafaadsan oo macnaha soo qaxay oo biyaha ka soo qaxay la kortago boonada iyadoo yacni dadka aan waxba kala qarinaynin isha maalmeed ayaan macnaha isku ogeyn maamulka madaxweynaha iyo wasiiradana waxay ogaayeen in guddiga oo la magacaabay in la dhammaystiro oo markuu madaxweynaha saxiixo oo dabadeedna ay saxiixo gudoomiyaha gobolka la howlgalo
oo hawshaas la qabto oo sidaas wax lagu bixiyo oo shacabkana si oo raalli ay ku yihiin lagu gaarsiiyo raashinka boonadaas oo 8 saac la bixiyey waxaan ka ogeyn ma laha maayeer ku-xigeenkii duqa magaaladana waan ahay aadaana ugu xumahay shacabka inay ka cabtaan oo ay diidaanna waa muhiim waana ka raalli garaynayaa boonadan in la bixi doono maalin cad in la bixi doono wax habeen la yidhahdaan aan la bixi doonin haddii ilaahay yidhaahdo waxaana jecelnahay in nin kasta oo macnaha reer beledweyne ninkii ilaahay u calfo inay gaaraan boonooyinka waa maxamed ibraahim siyaad TV beledweyne